بسم الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسلام يا دمان أخيارتا داوني فيديو جن ملك سو جوكتان مقعي ومحمد عشر كنا واحد يسوي قد بنيه UKPHD Union كسو دواذا عشر كني تضبط لها أها عشر كنا مانتو وعشر كيسيدات وحنا كسب سنة هاي drivers handbook ayuu ku saabsan yahay. casharkana maanta wuxuu noqonayaa sectionka 8aad ee handbook ama drivers handbook wuxuuna ku saabsan yahay ka warqabidda sinaanshaha iyo dadka lixaad kala ayuu ku saabsan yahay. section kani wuxuu ku bilaabanayaa TFL oo waxoogaa isxayeysiinaysa waxa ay leeyihiin wax naga go'an sidii aanu u horumarin lahayn gaadiidka London ugana dhigi lahayn mid accessible oo ah safe na ah muxuu ahaayay ama nabadgelyo ah la iskuna halayn karo. gaadiidka muxuu ahaayay publica ama public transport wuxuu ka ciyaaraa qayb aad iyo aad muhiim u ah sidii uu ugu furi lahaa muxuu ahaayay jaanisyo ay ku helaan amaba ay albaaba ay ugu furaan waxbarashada shaqada iyo waxyaalaha kale ee muhiimka u ah nolosha. waxaa laga hadlayaa gaadiidku wuxuu ka caawiyaa dadka sidii ay madaragtay ula xiriir lahaayeen familygooda saaxiibadood iyo dadka kale si ay ugu noolaadaan nolol oo maxay ahaydee independent ah. sectionkani wuxuu ku barayaa ama ku sheegayaa mas'uuliyadda adiga ku saaran iyo sidii aad u siin lahayd service wanaagsan qof kasta oo passenger ah. sectionkan waxaan kaga hadli doonaa qaybahan soo socda. waxaa ugu horeyn doona sidaad u caawin lahayd passengerska laga hadlaya waxa weeyaan inta badan waa dadka disability-ga haysta. waxaa laga hadli doonaa sharciga la yiraahdo Equality Act 2010. waxaa laga hadli doonaa oo kale gawaadhida loo sameeyay inay qaadaan wheelchairka. maha gaari kasta gawaadhi baa jira dedicated ah oo qaadi karaya wheelchairka ama qofkii asaga oo ka degin wheelchairkii uu gaariga ku safri karayo. gawaadhidaas baa laga hadlayaa. waxa kale oo laga hadli doonaa exemptionka ama qofka laga dhaafo in uu qaado wheelchairka cidda ay ciddaas tahay. waxaan ka hadli doonaa assistant dog ama kuwa loo yaqaano service animalka loo yaqaano ayaan ka hadli doonaa. waxaa kaloo kaga hadli doonaa diinteena iyo waxa ay ka qabto muxuu ahaayay ayda waa according to TFL. exemptionka aad ka heli karayso inaad lagu siin karayo inaad ayda aanad qaadin ayda maxay ahayd assistant dog ama service animalka loo yaqaano. qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa service animalku noqon doonaa qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa complaints amaba cabashooyinka muxuu ahaayay ku saabsan weeyaan dadka disability-ga qaba ee aan qaadayno. casharkan maanta waxaa lagaga hadli doonaa 8 qodob oo aan mid aan u gudageli doono. waxaana ugu horeyn doona caawinta rakaabka ama passengerska.
Transport for London waxa ay leedahay waxa aanu rumaysanahay inay muhiim tahay inaan bixino public transport system uu qof walba isticmaali karayo, dadka waaweyn, dadka disableka ayna isku si u isticmaali karayaan dadka oo dhan. adiga as PHV driver waxa lagaa rabaa ama waxa lagaa sugayaa inaad bixiso customer service heer sare ah oo aad siiso qof kasta oo passenger ah, wax kastaba ha ahaato baahidoodii. waxa kale oo jirto oon ognahay bay yidhaahdeen in dadka qaar ama passengerska qaar ay u baahan yihiin caawimaad dheeraad ah. sectionkani wuxuu ku siinayaa information dheeraad ah iyo advice iyo tips ayuu ku siin doonaa sidii aad u caawin lahayd dadka disableka ah, passengerska disableka ah iyo passengerska u baahan caawimaada. halkan waxaad ka helaysaa amaba halkan waxaa kugu soo bandhigayaan talooyin kaa caawinaya sidii aad u bixin lahayd service wanaagsan oo aad u siin lahayd passengerskaaga. mar kasta weydii inay caawimaad u baahan yihiin, kana warsug inta ay aqbalayaan caawimaadaada. dhagayso codsigooda, xasuusnow in qof walba qofka kale ka duwan yahay. waa talooyinka ku siinayaan. diyaar u ahaw inaad caawiso dadka disabilityga qaba iyo dadka waaweyn. caawinta ay kaaga baahan yihiin waxay noqon kartaa mid aad u sahlan, inaad wax u qorto haddii maad aragtay ay dhaguhu yara culus yihiin oo kale, inaad siiso waqti yar oo dheeraad ah, matalan soo qaad markay gaariga ka degayaan ama soo fuulayaan, inaad ayaga face garayso ood xaggooda u jeedsato si ay u arkaan bishimahaaga markaad hadlayso. talooyinkii baan weli ku jirnaaye waxaa lagu leeyahay codkaaga yara dheeree marka aad la hadlayso, fasiixna ka dhig haddii ay dhagaha waxoogaa ay dhagaha wax ka qabaan. talada kale oo lagu soo jeedinaya waxa weeyaan ayaga la hadal dadka waaweyn iyo dadka disableda, iyaga la hadal halkii aad kala hadli lahayd dadka iyaga la socda ee caawinaya, ayaga toos ula hadal. haddii passengerku uu indhala yahay oo uu ku weydiisto inaad caawiso oo aad ku hagto gaariga, waxaad istaagtaa ama aad ag istaagtaa qofka passengerka ah, waxaanad u ogolaataa inuu gacanta ku qabsado, kadibna markaas ku hag dhinaca gaariga. ha qabanin qofka oo ha soo jiidin ama ha u riixin maad aragtay directionka aad doonayso. weli waxaan ku jirnaa talooyinkii lagu siinayay si aad u caawin lahayd passengerska, si aad u caawin lahayd. waxaa laga yaabaa
dadka waaweyn iyo dadka disability-ga qaba inay u baahan yihiin waqti dheeraad ah. waxaa kaloo laga yaabaa inay u baahan yihiin in laga caawiyo inay gaariga soo galaan ama ay ka degaan. ayaga nabadgelyadooda darteed waxaa lagaa rabaa inaad tahay patient oo aanad xaajada ku adkaynin amaba aanad dadejinin amaba aanad muxuu ahaye adigoo cararaya oo shaqo kale u cararaya aanad ayaga dadejinin baa lagaa rabaa. waxaa lagaa rabaa inaad patient u tahay inta ay ka degayaan gaariga iyo inta ay soo fuulayaan. waa inaad hubisaa in ay dareemayaan comfortable oo aanad xaajada aanad ku adkaynin. waa inaad hubisaa inay xidhaan suunkoodii inta aanu gaarigu dhaqaaqin. waxaa laga hadlayaa dadka loo yaqaano dadka jilicsan sida dadka disability-ga qaba amaba muxuu ahaye dadka waaweyn ah. waxaa kale ood ku caawin kartaa inaad weydiiso inay haystaan alaabtoodii ama qalabkoodii ama wixii ay siteen oo dhan inay u dhan yihiin oo ay sitaan inta aanad dhaqaaqin oo aanad gaadhin muxuu ahaye meeshii aad u socotay. weli waxaan ku jirnaa talooyinkii lagu siinayay sidii aad u caawin lahayd passengerska u baahan caawimaada. waxaa lagu leeyahay u sheeg passengerka dhinaca uu socdo, meeshay u socdaan u sheeg. waxaa laga hadlayaa dadka muxuu ahaye indhahala marka aad gaari garaynayso. ogeysii haddii ay jirto khatar u dhow sida matalan kaba soo qaad muxuu ahaye namshibiyeeriga ama keebka si aanay ugu turunturoonin. haddii albaabo ay jiraan oo xaggooga u soo furan ama kasii jeeda. haddii ay jiraan meel dalcad ah oo la korayo amaba laga degayo. tani waxay ka caawinaysaa passengerka in aanu accident gelin amaba aanu dhaawacmin. markaad soo qaado passengerka oo aad u socoto destinationkii waxaa lagaa doonayaa gaar ahaan dadka indhahala inaad la socodsiiso haddii uu jiro wax delay ah amaba aad raagaysaan ama aad beddesho waddadii caadiga ahayd ee la isticmaali jiray ood ruudka beddesho. arrintaasina waa mid kale oo iyadana muhiim ah inaad samayso marka aad waddo dadka waaweyn oo aad u sheegto haddii uu delay jiro iyo haddii aad waddadii caadiga ahayd ee ay yaqaaneen maahayna waddo kale aad marayso. passengerska leh learning disability-ga waxaa laga yaabaa in ay warwaraan amaba ay upset noqdaan haddii aad beddesho waddadii ay yaqaaneen oo aad waddo kala marto. saas awgeed waxaa muhiim ah inaad u sheegto haddii uu delay jiro iyo haddii aad waddadii aad beddeshay oo aad waddo kala marayso for whatever reason. markaad soo gaadho destinationkii ay u socdeen waa inaad u sheegtaa locationka ama meesha aad joogto. kadibna waa inaad aad weydiisa oo tiraahdaa caawimaad miyaad u baahan tihiin si ay gaariga ay uga degaan. waxaa laga hadlayaa dadka muxuu ahaye elderlyga ah ama dadka waaweyn iyo dadka disability-ga qabaa laga hadlayaa dadka caawimaada u baahan. marka ay gaariga ka degaan waa inaad ku guide garaysaa ama aad geysaa meel safe ah. lama rabo intaad iska drop garayso goodhowna aad shaqada kuga xigtaado cararto. waxaa lagaa rabaa you have to make sure in qofkaas uu meel safe ah u joogo. waxaa laga yaabaa qofku in yahay
qof indhala meel uu asaga markaas comfortable ku yahay inaad uga tagto weeyaan wada halkan happy ku ahay haddii uu yahay qof weyn oo maaragtay caawimaad u baahan isna meel uu isna happy ku yahay oo safe inaad uga tagto weeyaan haddii uu yahay adiga waxa laga rabaa passengerka inaad meel safe uga tagto haddaad passengerka aad ka tagto oo meel khatar aad uga tagto oo goordo oo wax soo gaadhaan adigana dembigaas waxbaad ku leedahay goordo waa lagu qabsanayaa la soco wali waxaan ku jirnaa talooyinkii lagu siinayay ee ku saabsanaa sidaad u caawin lahayd passengerska u baahan caawimaada waxayna qosaysaa especially dadka maad aragtay cashka marka maad aragtay laga qaadayo passengerska marka wuxuu ku leeyahay lacagta laga qaadayo si clear ah uu sheeg haddii aad u celinayso baaqi haddaad u celinayso dadka indhaha la u tiri lacagta oo gacantooda ku tiri kuwa maad aragtay note-ka ah iyo kuwa coin-ka ahba gacantooda ugu tiri haddii uu passengerku uu dib ku qabo inuu tiriyo adiguna waxaad ku tiraahdaa ama aad u sheegtaa inaad caawin karayso ama caawin markasta waa inaad qalin iyo warqad aad haysataa sidii aad wax ugu qori lahayd rakaabka ama passengerska ay ku adag tahay inay wax maqlaan ama wax hadalku uu ku adag yahay sidii aad wax ugu qori lahayd muxuu ahaayey inaad haysataa qalin iyo warqad had iyo jeer waynu gaari kugu jiraa haddii aad wadato gawaadhida wheelchair accessible-ka loo yaqaano oo qofku asaga oo wheelchairka saaran lagu qaado waxaad hubisaa ama waa in qalabka loo baahan yahay oo dhan waa inay si fiican u shaqaynayaan waa inaanay available yihiin mar kasta meesha aad qofka ku dejinayso iyo meesha aad qofka ka qaadayso waxaa laga hadlayaa dadka wheelchairka wata waxa weeyaan waa inaad aad uga digtoonaataa ka fogow baa lagu leeyahay meelaha mishibiyeeriga leh amaba meelaha dalcadda ah waxaa kaloo lagu sheegayaa disability-gu always disability-gu mar walba ma aha wax la arki karo saas awgeed diyaar u ahow inaad caawiso passenger kasta oo caawimaad u baahan kara halkaa waxaa ku dhammaaday toobigii ahaa ama toobigii ugu horreeyey ee ahaa caawinta passengerka iminka waxaan geli doonaa toobiga ku xiga oo ah Equality Act 2020 ama sharciga sinaanshaha ee soo baxay 2010 iminkan waxaan ka hadlaynaa Equality Act 2020 oo ah sharciga sinaanshaha sharcigani wuxuu mamnuucayaa in qodobada soo socda oo aan sheegi doono in la isku discriminate gareeyo ayuu mamnuucayaa waxaa ka mid ah da'da age discrimination ama da'da in discrimination lagu sameeyo waa mamnuuc da'daasaa jirtaa waxaa xaq ma lihid waa mamnuuc weeyaan disability-ga ayaa lamid ah qof in la yiraahdo lugtaad la'dahay ama ishaad la'dahay ama waxaasaa kaa maqan saas awgeed waxaa xaq uma lihid gender assignment ayaa lamid ah waad garanaysaan marriage inaad guursato ama aad civil partner tahay lagugumana discriminate garayn karayo race-ka oo ah muxuu ahaaye waad garanaysaan muxuu ahaaye qofku meeshuu kasoo jeedo ama jinsiyadiisa religionka ama muxuu ahaaye diinta ama waxaad believe garaysan tahay in lagugu discriminate gareeyo waa mamnuuc
sex nooca tahay ama sexual oriented wataqaana nowadays, iyo inay qofku dumarka ay uur leedahay in lagu discriminate gareeyo waa mamnuuc. qaad uurka maxaa imaan karaya marka aad shaqaynayso haddii uu ku arko qofka aad u shaqaynaysaa uu ku eriyo uu ku yidhaahdo matalan kaba soo qaad uur baad leedahay saas awgeed waan ku eriyayaa, iyaduna waa mamnuuc. marka waxaa halkan ku yaala 10kaas qodob oo protection la siiyey xagga sharciga ah oo aan qofna lagu discriminate garayn karaynin arrimahan awgeed. waa sharci darro in qof si aan cadaalad ahayn loola dhaqmo based muxuu ahaye iyadoo lagu base garaynayo arrimihii aan soo sheegnay, muxuu ahaye colorkiisa, agekiisa and so forth. adigana acceptable ma aha adiga as private hire driver in aad qof customer amaba customerku uu isticmaalo luqad amaba u behavior gareeyo way uu qof kale discrimination ku sameynay. waxaa laga wadaa adigana discrimination ma samayn kartid as a private hire driver, muxuu ahaye adigoo eegaya qodobadii aan soo sheegnay laga hadlayaa, adigana laguma samayn karo. waxaa lagaa rabaa inaad qof kasta oo passengerkaaga ah aad ula dhaqanto si professional ah oo respect iyo ixtiraam uu ku jiro, adiga oo aan qofna xukumaynin kuna xukumaynin sida uu u eg yahay ama waxa aad u malaynayso inuu yahay. waxaa ku dhammaaday topicii Equality Act 2020 oo ahaa sharciga cadaaladda ama sinaanshaha, sharciga sinaanshaha. halkaas ku dhammaaday. waxaynu geli doonaa iminka oo aan ka hadli doonaa gawaarida loogu talagalay in lagu qaado wheelchairka ama loo yaqaano wheelchair accessible PHVs. wheelchair accessible PHVs waxa weeyaan waa gawaarida loogu talagalay in qofkii isaga oo saaran wheelchairka lagu qaadi karayo. la soco haddii aad wadato gawaarida maxay ahayde in loogu talagalay wheelchairka ama la yiraahdo wheelchair accessible PHVs-ka, haddaad gawaarida wadato waxaad haysataa mas-uuliyad ku saaran ama duties oo under the law ah oo aanad muxuu ahaye ignore garayn karin. haddaad ignore garaysana uu sharciga ku qabanayo. waxay ku leeyihiin operatorkaagu wuu la socdaa ama wuu ogyahay inaad wadato gaari muxuu ahaye in accessible ah. haddaad wadato gawaaridan soo sheegnay ee ah wheelchair accessible-ka waxaa qasab kugu ah inaad passengerka qaado asaga oo ku fadhiya wheelchairkiisa oo aan ka degin, oo aad suumanka loogu talagalay iyo qalabka loogu talagalay aad ugu xidho si safe ah si aanu wheelchairkaasi aanu u dhaqdhaqaaqin. waxaa kale oo qasab kugu ah in aanad ka qaadin lacag dheeraad ah maadaama uu wheelchair wato. waxaa kale oo qasab kugu ah haddii aad wadato gawaarida aan soo sheegnay in aad u ogolaato passengerka si safe ah inuu ku fadhiisto kuraasta gaariga haddii uu doorto inuu ku fadhiisto wheelchairkana aad si safe ah asagana aad u qaado. inaga waxa weeye marka lasoo gaabiyo haddii qofku uu yidhaahdo
kuraastan ku fadhiisanayaa qofka waa inaad kuraasta si safe aad u fadhiisisaa wheelchairkiisiina waa inaad isagana si safe aad u qaataa waa inaad hubisaa passengerku in si reasonable ah uu comfortable u yahay lama rabo inaad meel ku daamgarayso oo kale waa inaad passengerka aad siisaa muxuu ahaaye caawimaad kasta oo reasonable ah oo uu baahan yahay waxyaalahan oo waxyaalaha by law qasabka kugu ah haddii aad wadato gaari oo wheelchair accessible ah halkaas waxaan kaga baxnay gawaadhidii ahayd wheelchair accessible-ka iyo waxyaalaha waajibka kugu ah iyo sidii aad ula dhaqmi lahayd passengerska iminka waxaynu geli doonaa exemptionka dadka loo ogolaanayo in aanay qaadin maxay ahayd wheelchairka darawalka waxaa laga dhaafi karayaa oo keliya inuu qaado wheelchair waa sabab xagga caafimaadka awgeed unba looga dhaafi karayaa waxaa laga hadlayaa gawaadhida wheelchair accessible-ka ah haddii darawalku uu gudan kari waayo waajibaadka uu saaray sharciga sinaanshaha sectionkiisa 165 waajibaadka uu saaray darawalka haddii uu darawalku gudan kari waayo sababtuna ay tahay caafimaadkiisa oo hooseeya ama tamartiisa oo hooseysa waxaa la siin karaa markaas waxaa la yidhaahdo exemption ayaa la siin karaa waa laga dhaafi karayaa markaas in uu qaado wheelchair micnaheyga waxa weeyaan haddaanad haysanin exemption certificate gaadhigaasna aada wado la yidhaahdo wheelchair accessible-ka ah qofka waxaa ku qasban tahay inaad qaado haddaad diido inaad qaado means sharcigaad jibisay weeyaan marka sidaas ula soco haddii ay xaaladaasi kusoo wajahdo oo aad u baahato in aad apply garayso exemption certificate waxa aad la xiriiraysaa TFL oo waxaad apply garayn doontaa exemption certificate haddii laguu ogolaado oo lagu siiyo markaad caafimaadka warqadaha caafimaadka aad geyso haddii laguu ogolaado lagu siiyo waxaa lagu siin doonaa certificate oo aad ku dejiso muraayadda gaarigaaga halkaa waxaa ku dhammaaday exemptionka iyo shuruudihiisa ayaan kasoo hadalnay halkaasuu ku dhammaaday iminkan waxaynu gelaynaa assistant dogs amaba service animalka wixii loo yaqaano ayaan geli doonaa aan ka hadli doonaa sida loola dhilgaranayo waajibaadka kalkaasa qodobkan wuxuu ka hadlayaa assistant dogs ama ayda wax caawiya ama loo yaqaano service animal ayaan ka hadli doonaa qaybta 107aad ee sharciga loo yaqaano sharciga sinaanshaha ama Equality Act waxay qeexaysaa in darawalka PHP-ga ay qasab ku tahay inuu aqbalo muxuu ahaye in qof passenger ah oo wata assistant dog una ogolaado inuu aygu fadhiisto meel maxay ahayd lugihiisa ah waxa kale oo qasab ku ah PHP driverska in aanay diidi karin ama aanay weydiisan karin lacag dheeraad ah maadaama ay wataan assistant dog iyaduna waa mamnuuc ayda wax caawisa ama service animalka ama assistant dog hadba sida u taqaano waxa weeyaan waa ay si wanaagsan loo tababaray waana
waxayna ku jiraan shaqo ayay ku jiraan. saas awgeed ha ula dhaqmin sida aad ula dhaqanto xayawaanka kale ee la carbisto ee loo yaqaano pets. ha ula dhaqmin sidaas. waxaa lagu leeyahay ha taabanin aydaas, hana feed garaynin oo cunto ha siinin, distractionna ha ku samaynin in any way. waxaa jira noocyo badan oo assistant dog ah, way badan yihiin noocyadoodu. waxa aad ku garanaysaa noocoogana hadba colorka jacketka ay xidhan yihiin. la soco ama xasuusnow, mar kasta assistant dog ma xidhna jacket. micnaheedu waxa weeye mararka qaarkood iyagoo bilaa jacket ah ayaad arkaysaa. picturekan hoos soo gelin doono ayaa ina tusi doona kuwa ugu badan inta badan maaragtay aad la kulmi doonto. waxaa lagu leeyahay ogow isku breed ma aha, isku colorna ma aha. maxay ahayd assistant dogyadoo dhanna jacket ma xidhna lagu garto. saas la soco. the best way is qofka waad weydiin kartaa hadduu ay wato waxaad leedahay service animal ba. hadduu ku yidhahdo haa, inaad u ogolaato weeyaan. haddii uu shaki kaaga jiro oo astarada kugu ciyaarayaan, certificate bay haystaan, certificatekaas ama proofkaas ay ku tusi karayaan. laakiin haddiiba ay ku yidhahdaan waa service animal, waxa kuu fiicanba inaad iska ogolaato ayaa kuu fiican, oo aanad dib weynba u geysan qofka. waad iska garanaysa qofka service animal wati qofka kale. sawirkani wuxuu ku tusayaa qaar ka mid ah ayda wax caawisaa ama assistant dogs. ka ugu horeeya muxuu ahaaye xidhan jacketka yellowga ah, waad garanaysaan waa guide dog baa la yidhahdaa. wuxuu caawiyaa dadka badanaa, dadka indhahala u caawiyaa. waxaa ku xiga ayga maaragtay xagga bidixda xiga oo jacketka casaanka haysta. waxa weeyaan waa dadka dhagahala. ka dhinaca midigta xiga waxa weeyaan waxaa loogu talagalay dadka maaragtay assistant in disability dog aid ayaa la yidhahdaa. ayga kale oo dhinaca maaragtay bidix xiga wuxuu leeyahay jacket blue ah, ka kalena wuxuu leeyahay jacket green ah ayuu leeyahay. iyaguna waa service animal ama assistant dogs. waxaa ugu dambeeya labada ay, midna uu buluuga yahay, midna uu casaanka yahay. midna waa support dog, ka kalena waa medical detection dog. marka calaamadahaas ay kala leeyihiin. muxuu ahaayey calaamadahaas aan lagu kala garan karaa. ay way jirtaa iyaga laftooda aan habeeraatee wax calaamada lahayn. marka assistant dogsku waxa weeyaan kuwa ugu caansan waa kuwaas. keligoodna maaha, inta aan soo aragnay oo keliyana maaha, wayna ka badan yihiin. marka waxa weeyaan waxaa lagu tusinayaa uun inay qasab kugu tahay inaad qaado assistant dogska ama aydaas madar dadka caawisa. halkaa waxaa ku dhammaaday topicii assistant dogska ama ayda wax caawisa. waxaan iminka gelaynaa ayda iyo diinta islaamku waxa ay ka qabto according to TFL. topican oo ku saabsan ayda iyo muslimka islamic law, TFL baa warqadeeda kusoo qortay ama muxuu ahaye in drivers handbook ay ku taalaa. waxa ay leeyihiin sharia council waxa ay conform garaysay in darawaladu ay qaadi karayaan muxuu ahaye ayda dadka muxuu ahaye disabilityga ay wataan
darawallada muslimiinta inay qaadi karayaan oo aanay wax dhiba qabin ayay conform garaysay bay leeyihiin. anigu ma garanayo shariica council meel ay tahay iyo meeshay kasoo xigteen, laakiin adiga by law waad ku qasban tahay inaad qaado assistance dog, inaad qaado waad ku qasban tahay. marka saas ula soco. anu saan dareensanahayna maxay ahayday in wax dhib oo weyn oo ku keenaya ma jirto. aydan waa ay la tababaray, ayguna afka hadduu meesha geliyo weeyaan inta badan inta meesha ay ka timaado dhibaatadu. muxuu ahayay afka hadduu meel geliyo, aydanna ay afka meel gelisa maaha, waa ay aad iyo aad u tababaran oo meeshii la fadhiisanaysa oo aan ka dhaqaaqaynin. marka iskaba ilowga waxay TFL iyo maaragtay ay ka hayso ka aaminsan tahay muxuu ahayay in shariicada muslimka, laakiin waxaad ku qasban tahay inaad qaado by law waad ku qasban tahay. marka taasna halkaasaan kaga baxaynaa. waxaan imikana gelaynaa qodobka 6 ee ah exemption, in lagu siiyo ama laga dhaafo inaad qaado assistance dog. waxa kaliya oo lagu ogolaanayaa in laga dhaafo haddii ay tahay medical reason ama xaq caafimaad kaliya ayaa laga dhaafi karayaa. maxay noqon karaysaa? waxay noqon karaysaa haddii aad qabto asma, kadibna asmadaasi ay kugu kordhayso ama kugu saa'idayso marka ay ku soo dhawaado. waxa kale oo ay noqon kartaa inaad allergic u qabto oo uu allergic kugu kacayo haddii aygaasi uu ku soo dhawaado. waxa kale oo lagaga dhaafi karayaa haddii aad tahay dadka ayda ka baqa oo aad qabto phobia, iyadana waa laga dhaafi karayaa. haddaba haddii arrimahaas haddii ay mid ka mida aad qabto, waxaa laga yaabaa in marka exemption lagu siiyo. marka haddaad u baahato inaad exemption apply garayso, waxaad la xiriiraysaa TFL baad la xiriiraysaa, kabacdina exemption baad apply garaynaysaa, exception certificate. haddii lagu ogolaado exemptionkaas ama warqadaas haddii lagu ogolaado maaragtay exemptionkaas ama laga dhaafo, waxaa lagu siinayaa certificate adiga ama warqad aad ku dhajiso screenka gaarigaaga. halkan waxaan kaga baxnay exemptionkii baan kaga baxnay. iminkana waxa aynu geli doonaa haddii ilaaha yidhaahdo qodobkii ugu dambeeyey ee cashirkeena 8aad oo ah complaints. topican oo ah kii ugu dambeeyey cashirkeena maanta wuxuu noqonayaa complaints. haddii cabasho ay soo gaadho Transport for London, waxa ay leeyihiin cabashadaasina ay ku saabsan tahay in la jebiyey sharciga sinaanshaha, waxaanu samaynaynaa investigation baanu samaynaynaa bay leeyihiin. haddii aanu helna bay leeyihiin enough evidence in dembi la galay, aanan u aragno arrintaas inay tahay arrin muxuu ahayey u wanaagsan xagga publica ah, waxaanu qofka kusoo oogaynaa, darawalka waxaan kusoo oogaynaa dacwad. haddii ay kugu caddaato inaad sharciga jebisay, sharcigaas sinaanshaha oo lagu xukumo, kadibna TFL waxay go-aan ka gaari doontaa in aad ku habboon tahay inaad laysanka haysato iyo in kale. waxaa dhici karta markaas in laysanka laga xayiro ama laga qaadaba. halkaa waxaa ku dhammaaday cashirkeenii 8aad ee drivers handbook 0 ama safety, equality and regulatory understanding.
casharkeeni maanta halkaas ayuu ku dhan yahay. waxaan ka cudur daaranayaa waxaan ku duubay meel madow baan ku duubay habeenna way ahayd marka laga raali ahaado taas. I hope in codkuna aad si fiican u maqli karaysaan. waxaan idin rajaynayaa casharkan cashar lamid intaan ku kulmi doono nabadqab iyo barwaaqo. waxaa kaloo ka codsanayaa in aad gaarsiisaan darawlada kale ee u baahan inay ka faa'iidaystaan casharadan. waxaa kaloo idinka codsanayaa in unionkeena aynu kobcino. saas awgeed qof walba saaxiibada kusoo dar. awooddeena waxay xoogaysanaysaa ama ay sii badanaysaa marka memberkeenu uu bato. marka waan idin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.